xaafadan yar oo Colombiana bartankeeda ay ku soo kortay Griselda Blanco qofna ma uu dhaadaynin inay haweeneydan yar maalmaha ka mid noqon doonto boqorada maandooriyaha kokaayinta waxaan idin soo tabin doonaa sheekada hogaamiyaha dagaalka kokaayinta Griselda Blanco sanadkii 1943 Blanco ayaa ku dhalatay Colombia qoyska ay ka soo jeedayna waxa uu ahaa mid nolol hoose ku nool si ay uga taqalusto hantiyaradan baaxadda weyn waxay dooratay wadada suke oo ah shaqooyinka sharci darrada ah xilli hore ayay gashay caalamka godobta iyo shirqoolka markii ay 12 jirsatayna waxay afduub u geysatay wiil yar kadib waalidiinta wiilka dhashay markii ay awoodi kari waayeen madax furashadii nolosha ayay dhaafisay da'deedu markii 14 jirsatayna waxay ka baxsatay gurigii hooyadeed kadib markii ay tacaddi dhanka galmada kala kulantay sayga hooyadeed qaba Griselda waxay sii waday shaqooyinkeedii sharci darrada ahaa ilaa ay la kulantay ninka saygeeda u horeeya noqon doona Carlos Torreguero kaasoo ku shaqaysan jiray shakhsiyadan jirin iyo tahriibinta dadka Colombia ilaa Mareykanka si ay Blanco ugu la midowdo shaqooyinka been abuurka inta kadibna waxay kala tageen markii ay 3 caruur u dhashay dabadeed waxay guursatay Alberto Bravo oo kamid ah ganacsatada ugu tunka weyn ee maandooriyaha kokaayinta si uu barbila ugu noqdo in ay gasho caalamka maandooriyaha afkaarteeda cajiibka aan adaha kaga faydo kokaayinta muddo kadib waxay safar u gashay New York halkaas oo ay kula noolaatay isaga inta kadib waxa xog iyada ku salaysan heshay waaxda la dagaalanka maandooriyaha kokaayinta ee Mareykanka si ay u helaan gabadha ka dambaysa hawlgallada tahriibinta iyo ganacsiga sharci darrada isla markaana waxay qaadeen olole lagu baadigoobayo Griselda Blanco sanadkii 1975 waxay soo saareen liis ay ku qeexan yihiin dambiyadeedu balse Blanco waxa uu suurto gashay inay u baxsato halka iyo Colombia xirfadaheedii ugu caasan ayaa liftay una tahriibin jirtay maandooriyaha kokaayinta waxa kamid ahaa in ay ku qariso dharka hoose ee haweenka iyo xataa kursiga soconaya ee curyaanka gabaabsigii 70-aadkiina waxay u guurtay Miami halkaas ay ku yagleeshay koox dablay ah gaadiidka mootooyinka waxay ka dhigatay dariiqa kaliya ay ku qaarijiso dadyowga ay sharaysanayso waxaana lagu sifeeyay inay tahay tan ugu halista badan la shuftooyinka warbaahinta Mareykankuna waxay cadeysay inay ka dambeysay dagaalkii Cowboy ee Miami ka dhacay iyadoo taalo tixraacayna waxa loogu naanaysay carmalkii madoobay markii ay soo afjartay nolosha 3 nimankeeda kamid ah dagaalkii ay ka shiday Miami kadib waxay noqotay mid saameyn weyn leh kula halkaas sidoo kale waxay si tafatiran u maamushay ganacsigeeda maandooriyaha kokaayinta waxaana macaashkeedu gaadhay bil kasta $8 milyan lacagtaasna waxay u bedeshay hoteelo waaweyn iyo shirkado si ay u dayactirto una xifdido dhaqaalaheeda ilaa uu yimi sanadkii 1985 oo ay ku guuleysatay wakaalada la dagaalanka maandooriyaha in ay xabsiga u dhaadhiciso balse firfircoonida Griselda ma aysan istaagin ee waxay hawsheeda ka wadatay jeelka dhexdiisa inkastoo loo haystay 200 oo kiisoo dila ilaa waxay cadeysatay 3 kamid ah sanadkii 2004 ayaa xuriyadeeda loo soo celiyay kadib markii ay jeelka ku laasatay 19 sano oo dhameystiran iyadoo loo raray Colombia gaar ahaan Medellin caasimada maandooriyaha iyo kokaayinta magaca Griselda waxa lagu mijaxay ganacsadihii weynaa ee daroogada Pablo Escobar waxaana la shaaciyay inuu damaanad siiyay intii ay joogtay New York si ay u sharciyeyso lacagihiisa balse shaqooyinkaas oo dhan wali meel ay ku qotomaan looma jiha saarin حتى dambi baadhistii lagu sameeyay Blanco kuma aysan magacaabin Pablo Escobar magaciisa sanadkii 2012 waxa ciidamada ammaanka Colombia shaaciyay in ay geeriyootay Griselda waxaana itibaaxeen in 2 nin oo hubaysan oo saarna gaadiidka mootada loo yaqaano ay rasaas ku fureen Griselda gudaha magaalada Medellin waxaana ay u dhimatay 2 xabadood oo madaxa ka soo gaadhay